anaka oo joogna sanad guuradii 25aad ee shirkii Carta Soomaalida lagu heshiisiyay oo dawladda Soomaaliya aasaas loogu dhigay waxa runta ayadana farxad kala ah inaan la iloobinin hay'adihii shirkadihii aqoon-yahanadii garadkii Soomaaliyeed dowr weyn ka qaatay tobankii sano oo ka horeysa Carta iyo ka bacdiba wax weyn ku soo kordhay dadka Soomaaliyeed marka shirkadda Hormuud wuxuu ahaa xawaalada iyo isgaarsiinta iyo maalgelinta ka shaqeysa 25 sano marka la fiiriyo iyo dawladda iska Soomaaliyeed dowrka ay ka qaadatay mid la iloobi kara ma aha Soomaaliya meel kasta oo kamid ay isku xirtay dadka dibadda jira iyo dadka gudaha jooga ay isku xirtay xawaaladaha ugu badan ee lacagta ugu badan dalka dibadda laga keenay ayada ayaa soo gelisay aasaas waxay u dhigtay bangiyada Soomaaliyeed in samaysmaan dadka Soomaaliyeed bangiyo samaystaan ku kalsoonaadaan ayagana waxaan ugu hambaliyeenaynaa dadaalkaas weynka ay geliyeen dalka Soomaaliyeed iyo horumarka ay geeyeen waxaan rajaynaynaa in mataqaana ay noqoto ku dayasho mudan dadka kale ay ku daydaan waana lagu dadaal kuwa badan ayaa jidkoodii qaaday waana u hambaliyeenaynaa 25 guurada waa mahadsantihiin salaamu calaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh